NASA waxay daaha ka rogtay xidhid yaab leh oo asteroid u muuqda. Dayax gacmeedka NASA ee Lu'i ayaa sameeyey duulimaad guul leh oo ah asteroidka labaad ee liiskeeda ay tahay in la arko usbuuca dhammaadkii, wuxuuna dib u soo celiyey sawir muujinaya shayga dheeraaday ee qaabkiisa laba jibaaran. Waxaa soo baxday in asteroid Donald Johansson, oo loogu magac daray cilmi nafsiga cilmiga aadanaha ee daahfuray fossils awoowe bini'aadam ah oo la yidhaahdo Lu'i, waa waxa loo yaqaan ontact binary oo leh laba tiir oo qoorta cidhiidhi ah. La talinta sawirka maanta, NASA waxay isbarbardhig ku samaysay qaabdhismeedka qolofka leh iyo labo ka mid ah koodyada jalaatada ee buulkiisa leh. Asteroid Donald Johansson waxa uu leeyahay geologi aad u adag, ayuu yidhi Hal Lefison, saynisyahan meerayaasha ah oo ka tirsan marxadka cilmi baadhista ee Koonfur Galbeed oo u adeega sida baaraha maamulaha howlgalka Lu'i. Markaan si faahfaahsan u baranayno qaababka adag, waxay daaha ka qaadi doonaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan dhismooyinka dhismaha iyo hababka isku dhaca ee sameeyey meerayaasha nidaamka qoraxda. Lu'i waxay ku dhowaatay meel 6 mayl 9 kilomitir u jirta Donald Johansson 2 Abriil, iyadoo sawiraysa sawir labadii ilbiriqsi kasta ama wax ka badan markay dhaaftay. Sawiradu waxay xaqiijiyeen heerka asteroidka inuu yahay laba xidhiidh, taas oo ah shay isku dhafan oo ay sameeyeen isku dhac degdeg ah oo ka mid ah laba jidh oo yaryar oo samada ah. Donald Johansson waxa uu ka yara weyn yahay sidii markii hore loo malaynayay, isaga oo dherarkiisu dhan yahay 5 mayl 8 kilomitir iyo balac 2 mayl 5 kilomitir oo ah meesha ugu ballaadhan. Kulankii Easterka waxa uu dhacay 3 sano iyo bad kadib markii Lu'i la bilaabay, iyo 7 bilood kadib 5 foot ballaaran baaritaanka ayaa u duulay asteroidkii ugu horeeyey, Dinkinesh, iyo dayax yar oo la yidhaahdo Selam. Sida Donald Johansson, Selam waxaa la ogaaday inuu yahay binary xiriiriye. Cilmi baadhayaashu waxay tixgeliyaan labada kulan ee Lu'i ee suunka asteroidka ugu weyn, kaas oo u dhexeeya wareegyada Mars iyo Jupiter, inay yihiin diiran oo kaliya ee dhacdada ugu weyn ee howlgalka, daraasad faahfaahsan oo lagu magacaabo Jupiter Trojan Asteroids. Asteroidska noocan oo kale ah waxay si aan dhib lahayn ugu xayiran yihiin meelaha resonan ee meeraha Jupiters marka ay ugu wacan tahay saamaynta cufiskiid ee meeraha weyn. Ma jiro dayax gacmeed weligeed u dhowaaday Jupiter Trojan. Tom Statler, oo ah saynisyahanka barnaamijka NASA ee 9 milyan ee howlgalka Lu'i, ayaa sheegay in tayada sawirka hore ay muujinayso awoodda weyn ee qalabka Lu'i. Suurtagalnimada in aan runtii daaqad cusub u furo taariikhda nidaamkayaga qoraxda marka Lu'i ay gaadho asteroidska Trojan waa mid aad u weyn, ayuu yidhi. Dhowrka toddobaad ee soo socda, cilmi baarayaashu waxay soo saari doonaan, farsamayn doonaan oo ay falanqayn doonaan xogta Lu'i sawir qaadaha madow iyo caddaanka iyo sidoo kale sawir qaadaha midabka, spectrometer infrared iyo kulaylka infrared spectrometer. Dayax gacmeedkan ayaa la qorsheeyey inuu sanadkan intiisa badan ku socdaalo suunka ugu weyn ee asteroidka. Lu'i kulankeedii ugu horeeyey ee Jupiter Trojan Asteroid, oo loo yaqaan Eurybates, ayaa lagu wadaa inuu dhaco Agoosto 2027. 4 kulan oo Trojan oo dheeri ah ayaa raaci doona inta u dhaxaysa 2027 iyo 2033.